يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال. qofka mu'minka dhabta ah waa inuu gartaa hadafka dhabta uu socda meeshii goortu khasaaro dhaba galayna inay tahay markuu naar galo guul dhaba goortu helayna inay tahay markuu janno galo walow hal gubane quraanku inoo sheegay kuwa la gubay oo hadana la yiri maxay dalika alfawz alkabir inta la gubay ayaa ilaahay leeyahay dalika alfawz alkabir waayo hadaf alxayaa bay ku guuleysteen noloshu marka hadaf haydin yeelato noloshu hadaf ka yeesha xaqiijinaysa hadafka aad xaqiijinaysaana ha cadaado wax kasto nolosha aad qabanaysa marka waa inaad iska weydiisaa hadafkayga muxuu ka gooyaa intuu jaraya wax kasto meesha aad u socoto wax weyn ka taraya qofka binaadamka uu qaata مثلا dadku inuu shaqo fiican wada helaa oo raadinaya markaas aad iskuul galaysaa jaamacad galaysaa kan ka sii baxaysaa kan ka sii waxa soo dhan waxaad socotaa hadaf ama maxay shaqo mustawaheedu xadka ay si aad u gaari lahayd waxaan oo dhan u soo martay 20 sano waxbarasho waxaad ugu jirtaa shaqo mustawaheedu ka yahay inaad gaadho ka waran janno mustawaheedu inaad gaadho maxay u baahan tahay markaa shaqo caynkeeya limithli hada فليعمل العاملون بإلهي تجنة سفيه تاس أو كلمة رب يلي عندي دوريسا أو شقيسة تبالي ها عندي دوريسا أو شقيسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بإلهي كو نرش الله ميا بنادم نرش إنه الله ما وكمت لكن حقي الله ميا ما مدح ماذا ما لعكت الله هو حقي إلهي تجنة سفيه بيلي وفي ذلك فليتنافس متنافسون كو الله ما يتاهوا الله ما بإلهي سبحانه وتعالى